iyadoo dowladda Puntland ay hore u mamnuucday in deegaano cusub lagu soo kordhiyo deegaanada Puntland ayaa degmada Jariban qaybo ka mid ah waxaa muddooyinkan ku soo badanayay deegaamada cusub ee la samaynayo waxaana ka mid ah meelaha deegaanadaas ay ku soo badanayeen magaalooyinka Balibusle, Buubi iyo Seemada iyo waliba deegaano kale oo iyaguna aan sidaas uga dheerayn dhammaan deegaanadaas ayaa waxaa laga sameeyay howlgallo lagu burburinayo deegaanadii cusbaa kuwaas oo ay ka mid yihiin in goobo ay ka mid yihiin sandaqado iyo waliba barkado iyo kuudadka ama cabirada la saaro wadooyinka halbowlaha ah ee iyo waliba goobaha isku socodka muhiimka ku ah iyo xoolo daaqsinka ayaa burburin lagu sameeyay iyadoona deegaano badan halkaasi laga burburiyay kuwaas oo dhammaantood ahaa deegaano cusub oo ku soo kordhayay deegaanada Puntland qaar ka mid ah bulshada ayaa shir arrintaas ay ka yeesheen waxay uga ka soo saareen bayaan sida awgeed waxa la go'aansaday ayaabihii hore deegaamadii hore oo dhulku awal lahaa oo biyaha lahaa inaan lagu darin deegaamo kale ama kaaman ama tuulo waayo tuulo kaligeed waxba qaban mayso waxa fiican deegaanka kale inay ku biidho si ay meeshii deegaanka awal ahayd ay u noqoto magaalo dhisanta deeqfa meel wax isla taago fasandaqad meel wax ka dhisto waxa weeye meelna noqon mayso deegaan waxa weeye dawladda Puntland midda waxa weeye Soomaaliya nabaddoonnada saraakiisha culimada inta waxaan ka rabnaa waxa weeye wadanka dadka in la wacdiyo in wax loo sheego in la yiraahdo shakhsiga dantu wato mujtamaca laga daayo inta waa rabnaa anagu waxaan nahay dhalinyaradii wadanka joogtay deegaanku wuxuu ku tashaday inay magaaladooda dhistaan deegaankooda ilaashadaan halkan aad arkaysaan waa deegaamadii lagu ballamay inaan laga samayn karin deegaamo cusub meesha ka dhisnayd waad arkaysaan waa la fujiyay dib dambana looma ogolaan doono taan hadda joogno waxa ku xigi doona insha Allah kuwa kale oo la deegaanka waxa lagu tashaday inaan deegaamadii hore joogay magaalooyinka inaan deegaamo cusub lagu beerin dadka dibad iyo daakhil dawladda shacabka cilmaadiinka waxgaradka waxaan u sheegaynaa in sidaas oo kale naloo la qaato dawladuna amar bay ka soo saartay inaan deegaamayn kale lagu samayn karin annagoo meesha waxa maraya deegaanka Balibusle, Buubi, Salax Ceelbardaale deegaamadiisii baanu meesha ku maraynaa ciidan iyo odayaal iyo rag isku tashaday baa meeshaan maraya waxaanu duminay fayskii labaad saddexaad waxa uu horeeyay matoor wuxuu ku yaalaa dhudhubafooyine meesha carrakaawadu ka goyso deegaanka labaad oo xiga waxay saaran tahay qaboolay waa laga fujiyay halkaas waxa ka dhisnaa sandaqad deegaanka saddexaad oo xiga waxa weeyo buurooda kor oo buuri hoos ka jirta waa laga fujiyay fayska saddexaad buu noo marayaa haddii ilaahay idmo waxaanu ku xijinaynaa bara badan oo xiga sida birxoog meel maxaa reedab qolof agtiisa sida cabiro badan oo yaala dhulka sida waxyaalaha aan magaranaysa deegaanka dhibaato ku ah dhulkaasi waxa weeyaan ummadii deganeyd oo mujtamac ahayd iyo deegaanka dadkii ku noolaa waxa isla raaceen oo go'aansadeen oo saxiixdeen magaalooyinka in la dhiso in la ayaga la weyneeyo ayaga in la sharaxdo la qurxiyo in deegaanka xoolo daaqsinta oo ka baxsan ciidaga kale aysan jirin Cabdi Khayr Maxamed Jaamac Puntland TV degmada Jariban ee gobolka Mudug